بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيارات قيمة بدن هودا نقلا سعوتاي ميل كستاد شوكتان halkan waa telefishinka qaranka Soomaaliland studiyiisa magaalada Hargeysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo wareysi dhinacyo badan taabanayaan kula yeelan doono wasiirka wasaaradda diinta awqaafta iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Djibouti Aadan Xasan Aadan oo barnaamijka noogu martiyay waqtigiisa qaaligana aadan uga mahad celinayno meel kasta aad joogtaan idinku barnaamijkaasi ku soo dhawaada saacada wasiir barnaamijka waan kaaga mahad celinaa kulanti wanaagsan kuna soo dhawo telefishinka qaranka Soomaaliland iyo waliba magaalada Hargeysa barnaamijka wareysigiisa saacada wasiir ugu horreyn waxaan doonayaa inaad warbixin barortayga siiso waqtiga dhalatay maadaama nin dhalinyaro in badan la og yahay taariikh nololeedkaaga heerarkii waxbarasho iyo si kooban intayna wareysigeena u guda galin bismillaahir rahmaanir rahiim aad ma santiin waan ku faraxsanahay inaan mar kale ku kulano telefishinka Hargeysa marar hore halkan waa laygu wareystay laakiin malaha inta xileen hadda dareemayo ma dareemayno uu ka furfurnaa dabcan gartay taariikh nololeed weli ma balihiba waxaan isku haystaa inaan yarba isku haystaa taariikh hadda aan ka soo warramo oo dhahdo inta baan soo jirayo inta soo hawlan soo qabtay oo halka baan soo maray malaha ma jirto laakiin waxbarashadeedii hoose dhexe iyo saraba Djibouti aan ku qaatay tacliintayda jaamacadeed waxaan ku soo qaatay dalka Mauritania jaamacadda Nouakchott master kana waxaan ka sameeyay Malaysia University of Malaya oo ah jaamacadda ugu weyn Malaysia inta dabadeedna hawl u baantay ku jiray oo waxaan ka shaqeynayay kolka laga yimaado shaqadayda rasmiga ah waxaan la shaqeynay bulshada rayidka waxaan la soo shaqeynay ururada ka shaqeeya dhaqanka iyo suugaanta iyo daryeelka afka ayaan ka soo shaqeynay gaar ahaan ururka la magac baxay Soomaali Speaking Pen ayaa ugu weynaa meel aan wax maartaan ka soo taray in waxaag taas weeytaan u guda gali doono inaga isbarbar dhigi doono qayb badan aadan waxa la xasuustaa buugaag badan oo aad qoraal u lahayd oo arrimo badan ka hadlayay markii dambena waxaad gaadhay inaad gudoomiye ka noqoto qorayaashaas ama Somaliland gudigaasi buugaagtaad qortay intii aanad xeelka siyaasadeed gelin ka hor kuwa isleedahay kuwa bulshada aad kugu barteen bay yihiin ama muddadii aad gudoomiyahaasi ahayd jawi caynkee ahaayeen maxaad isleedahay ka qabatay ururka laftirkiisa waxaan ku yar laamay horta ilaah waa wadaan wada waxbarashadayda iyo waxaan ka shaqeeyay isma lahayn gartay waxaan soo bartay jaamacadda uga soo baxay marka hore waxay ahayd xeer waxaan ka soo baxay faculty of law waxaan bartay xeerashii maxkamadaha oo waxay inaan noqdo ama maaritaanay ama qaadi inaan noqdo maxkamadeed oo judge ah ama inaan noqdo nin kii difaacay advocate laakiin waan ka bayray oo waxaan u shaqo tagay machadka cilmi baarista ama xarunta cilmi baarista ee Djibouti gaar ahaan machadka afafka ayaan u shaqo tagay machadka afafka waa machad uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti kadib markii uu xukunka qabtay looguna talagalay in lagu daryeelo labada af ee Djibouti lagaga hadlay localka ah af Soomaaliga iyo af Afariga waxay noqotay markaa si buuxda in aan ugu go'o ka shaqeynta iyo daryeelka afafkaas waxay taasina ku saleysnayd jacayl hore oo anigu aan u hayay afka iyo suugaanta iyo dhaqanka si guudba aan u hayay waxaan se ku dadaalayay inaanay shaqadaydu iga qaadanin haddana waxbarashadeydii oo aan sii hayo wadadii waxbarashada sida aawadeed master degree markaan sameynay waxaan ku fara adeegay inaanan gelin maaragtaan af iyo dhaqan aan wadadaydii sii hayo waxaan galay kulliyadda ama Samaarta departmentka strategic studieska ama se daraasaadka istiraatiijiyaddu waa wax ka fog majaalka aan ka shaqeynayay oo la xiriira defense and security
ilaah conflict resolution iyo mediation iyo wax saas ku tacalluq weeyaan kolka labo ayaan mar walba maartan rabay inaan miisaamo shaqadeydii oo noqotay inaan ka shaqeeyo dhaqanka iyo suugaanta iyo waxbarashadeydii oo kolka hore ahayd xeerar iyo siyaasad iyo wax la xiriira oo sidii u wado ilaa maantana sidii bay isku barbar socdaan oo nin siyaasi aan noqday oo wasiir ah laakiin at the same time haddana xiriirkiisii suugaaneed dhaqameed ururo aanan ka bixin waxaa nasiib wanaag ahayd annagoo weli dhalinyar ah ururka Somali Pen inaan ku biirno 2003 oo ahayd markii ugu horeysay uu geeska Afrika ba yimaado wixii inta ka horeeyay Somali Pen wuxuu deganaa London oo aqoonyahan Soomaaliyeed qurba jooga oo dhulka iska urursaday baa samaystay laakiin waxay nasiib yeesheen inay la kulmaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo uu yiraahdo soo diga dalkiinii hooyo halkan baad maartaan wax uga tari kartaan oo wax ka qaban kartaan haddii ay Soomaaliya burbur iyo dagaal ka socdaan anaga fiyo halkan ba soo fariista wadalkiini sida Abu Djibouti ku soo tagay marka dhalinyartii ugu horeysay oo xiriir la yeelatay xubnana ka noqotay ayaan kamid ahaa wixii inta ka dambeeyay 2004 oo ba la ii doortay inaan noqdo xogayaha guud ee maartaan naadiga jirta xogayaha inta badan hawsha isaga gacanta ku haya shaqada inta ugu badan maartaan ana igu dulacaysay dhalinyar fara badan oo runtii reer Djibouti oo shaqada maartaan ilahaysay ay jirtay oo u heelanayd afka inta ka hor anaga yaaqti mise yaaqi baad nooran jirteen oo afka oo lagu xamin jiray marka waa aad baan ugu haraanay oo waxa aan u baahanahay boo harantii dabadeed waxaan ku dadaalnay in wixii ka dambeeyay 2006 in aan idhaahno laamaha laga furo gobolada oo dhan oo Somaliland laanaha laga furo Muqdisho laanaha laga furo Soomaalida Ethiopia laanaha laga furo marka Kenya sida Silaag naadigii si dhaqso ayuu maartaan gobolka oo dhan u wada gaaray waxaana mar walba labadii sanaba mar in la qabto shir weynaha naadiga la qabto dadka dibadda jooga aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo kuwa gudaha jooga duruufta doonaan baa ku noolaadaan inay ku kulmaan oo ay ku sheekaystaan oo wax isku weydaarsadaan marka ilaa la soo gaarayay 2010 waxaan ahaa xogayihii ayaan ahaa 2010 ayaa la igu wareejiyay gudoomiyenimada naadiga waxaad ku soo kordhisay baa su'aashada ku jiray ama maxaa wax qabadkaaga ka xasuusanaysaa saddex arrimood oo wali mid uun malaha saldhigtay ayaa ugu muhiimsanaa wixii aan is-ilahi ku beeri ama aan dareemay waxa ugu muhiimsanayd bal inaa mar dadka Soomaalidu ay 40 sano ka soo wareegtay qoraalkii far Soomaaliga in wax la iska weydiiyo af Soomaaligu ma saldhigay qoraalkiisu mise wali waa qabiyo oo wuxuu u baahan yahay in wax lagu sii kordhiyo marka waan naga qabanay shirkii weynaa ee 40 guurada qoraalka far Soomaaliga oo ay ka qayb galeen xataa siyaasiyiinta ugu weyn Soomaalida maanta nool waxa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ka qayb galay madaxweynaha Djibouti waxa ka qayb galay madaxweynaha Somaliland dhammaan iyaga oo tusaya una muujinaya adduunyada heerka uu taagan yahay maartaan qiimaha af Soomaaliga yani sida ay u tixgelinayaan oo ay siyaasad ahaan ay rabaan inay u garab galaan aqoonyahankii Soomaaliyeed ee hawsha awal ku soo jiray marka saddexda madaxweyneba way ka qayb galeen miiskay u soo wada fadhiisteen iyaga maartaan shir gudoonka ahaa xafladaasi waxayna noo ahayd anaga farxad aad iyo aad u weyn oo aan muddo u helanayn in ay isla qabsadaan aqoonyahanka iyo siyaasigu oo dhinac uga soo jeestaan danta guud ee ku saabsan dhaqankii iyo afkii maalinka bay xaqiiqowday maalinka 40 guurada xuskeyga maartaan loo joogay waxaan ku soo beegnay hawl isla 2009 uu madaxweynuhu noo dhiibay oo ahayd diyaarinta qaamuus weyn oo sal u noqda cilmi baarista ku saabsan af Soomaaliga qaamuuskaasi kan ayuu noqday
waxaanan soo saarnay 2013 gabagabadii kolkaa xafladda 40 guurada ayaa qaamuuska lagu soo bandhigay dee wuxuu ahaa hawl culus bay ahayd 3 sano ayaa runtii loo fadhiyey qoraalkiisa iyo qabyatirkiisa marka 2010 baa la bilaabay macnaha rasmi ah waxaa loo bilaabay 2010 ilaa 3 sano markaa qaatay 3 sano qaatay waxaan xasuustaa shirkii ugu horeeyay oo la isku weydiinayay qaabka loo qorayo iyo which yani sida loo habaynayo waxaan qabanay bishii May 2010 ayaan Djibouti ku qabanay waxaanan iskugu yeedhnay dad wixii aan islahayn af Soomaaliga ama cilmi ahaan bay u barteen oo xeerashiisa yaqaanaan ama se xeel dheerayaal bay ku yihiin oo dhaqan ahaan bay ama suugaantay ku tiriyaan ama dee ereyadiisa ayay maaritaane macnayn yaqaanin waxaan qabanay bishii May Allahu naxariistay dad far badan oo hadda maanta u ducaynayno oo geeriyooday ayaa maartaan kamid ahaa waxa kamid ahaa Sharif Saalax waxa kamid ahaa Gaariya kamid ahaa waxa kamid ah Allahu naxariistay maartaan may waxa kamid ahaa Saalax oo isna qaamuus hore lahaa dad fara badan oo maanta analogy waxa kamid ahaa Saciid Washman oo isna xarunta cilmi baarista Djibouti ka shaqeynayay dad fara badan oo maanta intooda badan ay jooginba ayaa runtii ka qayb galay waxa ka qayb galay ragga maanta nool oo iyaguna hawsha ka qayb galay waxa kamid ah Sharaac Axmed Sharaac baa kamid ahaa waxa kamid ahaa Kadare oo Muqdisho jooga ayaa kamid ahaa Hadraawi nin la yiraahdo maartaana Fayrus oo isna jaamacadda Muqdisho dhiga dad fara badan ayaa ka qayb galay kadib kolkii siyaasadii guud ee qaamuuska lagu hagi lahaa la dhigay waxaan u qaybinay xilkii Soomaali meel kasta ay joogto in aan ku yeelano cid ereyada ururinteeda iyo macnaynteedaba noogu xil saarnaata oo aanan ka tagin afguriba inaanan ka tagin suuragalatan doonaya weeyaan luqadihii afguriga jira sida tilmaamta kala Djibouti mid looga yaqaano Somaliland looga yaqaano Ethiopia looga yaqaano Soomaaliya kale looga yaqaano haddana iyagoo hal erey laakiin macno kala yaqaana kuwaas marka macnaha waxa leedahay way ku wada jiraan marka ereyga soo baxo iyagoo wixii aan ka gaari karnay waxaan anagu go'aansanay inaanan wax kasta oo Soomaali ku hadasho waa Soomaali ama ereygaas lagaga hadlo koonfurta Soomaaliya ama lagaga hadlo Kenya ama Ethiopia ama Djibouti ama Somaliland meesha doonaba lagaga hadlo erey kasta oo Soomaali inuu tixgelintiisa leeyahay oonan oranin kan baaf Soomaaliya kan af Soomaali ma aha markaas shaqo adag ma ahayn sidee waqtiga inta laag beed u qaadatay marka aad eegto 3 sano inta u fadhideen ee ururinayeen intii oo dhan shaqo marka dib u xasuusato sidee yahay shaqadaas waqti badan bay qaadanaysaa haddaan macnaysiin idhaahno waa dhan ah malaa waxaa soo koobaya saaxiibkay Cabdalla Umar Mansour waa professor linguistics oo Talyaaniga degan oo Soomaaliyeed qaamuus bay soo saareen isaga iyo gabadh la yiraahdo Anarita Biglieli wuxuu nagala soo qayb galay shirarka aan ku diyaarinaynay iyaguna waxay ku wadeen jaamacadda Roma ka kale una leeyahay marka qolkaan nidhi 3 sano ayaa la nagaga rabaa mashruuca kan inaan ku dhamayno wuxuu yiri anagu ka aan wadno waxaan bilownay 1985 wuxuu soo baxay meelaha dhowr bilood ama 6 bilood ka hor kaayaga isla 2013 waa waqti runtii sodomeeyo sano marka wixii 30 sano oo nafisa lagu qabanayay anagu inaan 3 sano ku qabanno waxay nagu khasabtay inaan lacag badanna isticmaalno dad badanna isticmaalno tamar fara badanna aan isticmaalno waxaa jiray xafiis Istanbul oo halkan Hargeysa oo Allah naxariistay Gaariye وهاجي يباجري وأقوياء كسوماليلاند وحكا أورورينيي سي جوجتا أنا لو سودري سيدا ياسيلاك وحاجري مارتاني مقدشو كيسمايو بايدابو جيجيغا جيبوتي لندن مينيسوتا سويدن intaas oo dhan waxa joogay dad shaqeynay oo ereyada soo ururinay oo kolba loo qaybinayay wixii inta xaraf ee loo baahan yahay iyo inta dhinac ee la rabo ereyo in laga soo ururiyo haday noqoto dabaylaha haday noqoto beeraleyda haday noqoto badda iyo kalluumaysiga kolba dhinac loo baahdo ayaa cid loo xil saaray dabeetana waa la kala xulayay oo waa la kala miiray waxa marka barida ugu fadhiyay guddi adag oo Djibouti fadhiyay marka culaysku qoladaas ayuu ku dhacay waxaan islaahay
24 saacadood ma lahayn fasax 24 saacadood way shaqaynayeen waxa laga yaabaa in dharka la iska soo bedelayay oo inta badan xataa saddexda waqti waxa laga yaabaa inaan meel quraata ku tukano meel quraata wax ku wada cunno shaqaduna ay socoto oo kolba cidii u baahatay in dharka iska soo bedesho la fasaxo marka culayska inta badan halka bay ku dhacaysay ismaana aan lahayn wad ka gaarsiinaysiin laakiin bini aadanka hadii la curjiyo oo waqti loo qabto tamar fara badan ayaa maartaan la isticmaal karaa la gelin karaa saacadu si markaad eegto inagoo si guud u marayna barnaamijka kalena sugu iman doona hadii la yiraahdo waxa lagu dhiibay xilkii wasiirnimada markaad buugan ka gabagabudeen qodobka 3 ku daray waxaan ku yiraahdaa 3 arrimood baan kolkeen xilka qabtay yaa igu muhiimsanay waxa qaamuuska iyo 40 guuradaba xuskeyga nooga soo baxay inaanan Soomaali baana af Soomaaliga daryeeli karin wasaarad loo xil saarana ayna daryeeli karin af Soomaaliga waxa laga hadlaa dalal kala duwan maanta waxa laga yaabaa inuu noqdo afka xuduudda ka talaabay ugu ballaaran Afrika inuu noqdo ayaa suuragal ah wuxuuna degi doonaa dalal inta maanta ku hadasha aan ahayn ayuu degi doonaa Soomaalidaasi marka waa af ay wada leedahay haddii ay tiraahdo wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ay xil iska saarto tiraahdo xeerashiisa iyo maxaygiisa anaa gacanta ku qabanaya marna kuma filaanayso oo waxa laga yaabaa in Soomaalida Itoobiya joogtana ay xeerar kala sameystaan dibeetana af Soomaaliga midaysnaa uu yeesho aw noqdo afaf kala duwan marka waxaan isla garanay in la sameeyo akaademiya goboleed daryeelka af Soomaaliga iyadoo u xil saarnaata Soomaali been wuxuu ka shaqeeyaa wixii aqoon oo dhan xataa sawirlaha iyo kameramaanka wuxuu dhan ba xubin ka ay isaga marka waa aqoon oo dhan laakiin afka aynu sameeynaa nidhe academy lagu darso cilmi baadhistii samaysa turxaan bixisa qabiyo tirta wixii erebixinaha cusub ee afka u baahdana iyadoo ansixisa sida awoodeed waxaan sameynay oo kaga dhawaaqnay shirkii madaxweynayaashuna ansixiyeen dawladana wasiiradu ay saxeexeen in la sameeyo akaademiya goboleedka af Soomaaliga oo kolka la soo gaabsho iminka noqonaysa malaha aga akaademiya goboleedka af Soomaaliga akademigaas baa la oran karaa wixii ugu weynayaan dhalnay ayuu noqday isla akademiga inta su'aasha kale gudbinay marka wax ka weydiiyo aadan markaad eegto markaasi ma akademigaasi ma wareegayo Djibouti Somaliland Soomaaliya Itoobiya saas ma u soconaya mise meel buu beeskiisu ahaanaya xaruntiisu ahaanaysa anagu laba qol hadaan nahay labadaba asaasitaanka uma lahayn labada qol kolkan laahay wax weeyaan waa ururka Soomaali been wuxuu lahaa talada soo jeedinteeda iyo abuuristii ayuu lahaa dawladda Djibouti martigelintii iyo soo dhaweyntii bay lahayd wixii inta ka dambeeyay waxaan ku wareejinay aqoonyahankii Soomaaliyeed baan ugu wareejinay jaamacadda Djibouti ayaan u gogolnay iyaga halka marka muddo fadhiyay oo ka soo saaray guddi ku meel gaar ah oo u diyaariya xeerasha ay yeelanayso akademiyadu xeerashaas marka akademiyadu yeelanayso wali guddiga ku meel gaarka haba ku maqan kolka xeerashaas waxa ku oolaya sidee la isku dooranaya sidee loo maamulaya imisa xubnoodba maratan guddiga fulinta noqoni doona guddiga fulinta meel buu wada joogaya mise mid walba halkiisa ku shaqeyn doona laamo in maratan ay yeelato akademiyadu oo gobol walba jooga xarunta dhexe halkay noqonaysa waxaas oo dhan waxa ku maqan maratan guddiga ayaa ku maqan annagu waxaan isla go'aansanay wasiiradii dhaqanka ee geeska afka lagaga hadlo kulankayga ugu dambeeyay inaan yeelano inaan nahay daladii guud ee daryeelaysa qaaraanka maratan lagu daryeelayna bixinaysa laakiin aqoonyahanka Soomaaliyeed aan u dayno in ay maratan iyagu ay si aan turxaan lahayn oo siyaasad lahayn isku gudbaan iskuulana shaqeeyaan meesha doontana ay fadhiistaan in waa fiican marka wasiirada markaad eegto hawshaas oo dhan ku jira oo sida oo ballaaran oo mantiqadii oo dhan hawsheeda gacanta ku haya ayaa waxa lagu magacaabay inay noqoto wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka oo iyadana aan xagin ka baxaynin arrintii ay faraha ku haysay waxaan xasuustaa dadka golaha wasiirada lagu dhawaaqay ugu hambaliyada badan la ama dhalinyaro ahaan aad loo soo dhaweynaya adiga kamid ahaa wadii ku jiray xil siyaasi way wasaaradda markaad eegto wasiiriyan bal waxaad iyar isbarbar dhigtaa shaqadii aad haysay sida ahayd iyo shaqada siyaasiga markaad eegto aad ku jirto horta waxa weeyaan
shaqadii aan haynay si waa lai xujeeyo laygama reebin dhaqankii oo wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka ayaa la yidhi kolkaa dhinac xilkii uu iga sii biiray oo wixii awal baan ka shaqaynayay in aabba haddana la iga dhigo culays weyn bay aniga runtii iyay i saartay habase noqoto siyaasaddu waa wax dynamic ah oo galab walba iyo subax walba isbedel iyo orod iyo taxadar fara badan iyo soo jeed iyo nervosity u baahan inaad mar walba ku jirtid halka aqoon-yahanimada iyo cilmi baaristu ay u baahan tahay deganaansho iyo u baahan tahay kafiirsi iyo u kaadsasho iyo mararka qaarkood inaad wakti siiso ood ku seexato ood ku soo toosood waaga u beriso labadaas labadiiba waan ku dhex jiraa waxayse u badan dadku de fikirka hadda yaala waxa weye mar haddaad siyaasi noqoto okay mashaakil baad xalinaysaa oo hawl baad ku jiraysaa shaqaalaad kala maamulaysaa siyaasadaad dejinaysaa istaraatiijiyad baa lagaa sugayaa wakti looma helayo taa hore aan ku jiray waxaanse isku dayay inaan ka adkaysto oo aan dadkaygii aan aqoon-yahanada ahaa aan ku dhex jiray aan sii dhex joogo oon lasii shaqeeyo oon gacanta ku hayo waanan ku dhex jiraa ilaahay mahadii bishan waxaan soo saaray buug anigu aan turjumay oo wuxuu soo baxay bishan imika novemberta hadda aan ku jirno soo baxay waxaa la yidhaahdaa buuggaasi waa buug uu qoray nin la yidhahdo sunzu nebi ciise hortii 600 sano nebi ciise hortii marka buugga 3 jirsaday waa buug istiraatiijiyadaha dagaalka ama se xeeladaha dagaalka ayaa la dhahdaa the art of war ayaa la dhahdaa the art of war waxa weeyaan wuxuu noqonayaa xeeladaha dagaalka haddii inagu af Soomaaliya aan idhaahno xageeda dhaqanka ka soo galaysaa waa su'aal kale ama xageedii diinta ka soo galaysaa maana anigu cilmi baaristaydii kale ee waxbarashadeeda ahayd ee strategic studieska ahayd ayay daba galaysaa oo ay ku xidhan tahay oo jecelahay iyadana inaan xajisto marka dayna waqti u hesho inaad buug turjunto oo aad haddana maaragtay dib u akhrido revise garayso oo saxdo oo intaad la fagurto haddana aad soo saarto iyada qudheedu waa hawl adag laakiinse waad ku nasanaysaa oo waxaad baratay oo waad nafisaysaa oo siyaasadda markasta ood ku soo wareertid halkan baad kusoo nasanaysaa inaad buugaagta dhex buugga markaa uu kuu socday intii hore mise waxaad bilowday intii xilka lagu dhiibay baad bilowday buug xaqiiqda markaan u noqono kolkii xilka la ii dhiibayay qaamuuskan ka dhamaaday oo kolkan qaamuuska dhameeyay 2 bilood ka bacdi weeye waxaan wasiir noqday laakiin madaxayga ayuu ku jiray inaan buuggaa turjumo iyadoo qorshaha ii yaalo inaan buuggaa turjumo ayaan wasiir noqday waan bilaabay de kula meel buu soo joogsanayay waxaa ahayd inaan sanadkii horeba ka dhamaado marka ataan doonayay inaan eego markii aad madaxa banaanayd muddadaad ku dhameyn lahayd iyo markaad wasiirka tahay muddadaad ku dhamaysay ma isleedahay wax saayida la socdo xilku kaga baahday wax saayida la socdo taas shaki ma laha yani buugga intaan turjumayay kuma turjumin inta badan xafiiska xaafadda waxaan ku turjumayay safarada marka aan safaro u baxo maartan mission ku maqanahay ayaan inta badan sii heli jiray firaaqo intaan diyaaradda la socdo inta maartan shirarka laga soo baxay aan nasanayo hawsh inta ugu badan waxaan qabanayay intaan wadanka dibadda uga maqanahay laakiin marka wadanka soo gashid ee hawshii gacanta la gashid aad u adag tahay inaad hesho firaaqaad qofkaysid markaad eegto saacad wasiir inta ugu faraha badan leh Soomaaliya banaad ka hadashid ama urur dhalinyaro kale aad ka hadashid waxyaalaha khudbadda in dhalinyarta la dhiirigeliyo xilal loo dhiibay bay ahayd markaad eegto arrimaha ku jiri jirtay had iyo jeer Djibouti iyo Somaliland markaad eegto labadaba Somaliland maanta xukuumadda jirta markaad eegto waa dhalinyarta ugu faraha badnayd ba xilka haysa oo maanta waad la socotaa ama kuwii waqtiga aad ku joogtaan ama kuwa kala ahaadeen maxaa markaa rajaan sida dhalinyartu xilkaasi loo dhiibay ma ka soo bixi karaysaa maxaa raja ahaantaad muujinaysaa awal waxaad ka hadlijitay in loo dhiibay laakiin maanta adigii baa loo dhiibay kuwii kalena waa loo dhiibay sawir cayn ka yeedhisinaysaa wallahi horta xilku qasab yani oo si automatic iskaga imanaya marka waxa ka muhiimsan in la yiraahdo dhalinyarta ha loo dhiibo in dhalinyartu waxay u baahan yihiin mar walba xigmad oo duqeydid ayay u baahan yihiin qofka dhalinyartii ma dharsho mana yimaado isagoo waxay ku soo degaya ama buuxa oo iska dhammaystiran noloshuna waa khibrad weeyaan iyo wax la soo kala dhaxlay weey
xil qabashadiisu wax fudud ma aha laakiin in hore loo qabto ood hore uga nasato ma xuma yani intaad adigoo maaragtana duqoobeyntii kugu iman lahayd xil oo de waxaan ka hadlayaa waa xilka siyaasadeed siba kuma dhamaata intaad nolosha oo dhan xilku uu ku saaran yahay noloshana kolba meel unbaad kaga aadan tahay kolba halka aad kaga aadan tahay unbaa xilkaagii ah laakiin xilka siyaasiga waa experience yani inaad marto wixii aad ka tari karaysid aad ka tarto fursadna la siiyo dee dhalinyarta way fiican tahay waayo dee kamuu bixin meesha beriba uu ka tegi karaa laakiin in uu horta dayo wuxuu islahaa waad gudbin kartaa in fursad loo siiyo inuu gudbin karo isna is arko maaragtaane inuu wax tari kara iyo in kale waa wax wanaagsan laakiin marna lagama maarmayo in aabbayaashii iyo odayadii naga horeeyey inay barbar joogaan saacad wasiir markaad eegto Somaliland waa timi dhowr jeer baa timi kulamo noocaas kala kaasheen laakiin waa markii u horeysay adigoo wasiira aad timaado mas'uul jamhuuriyadda Djibouti matalayna aad tahay timaado maxaad isleedahay baa u dhexeeyay maanshaagii hore ee Somaliland aad iman jirtay iyo kuwii hore xaqiiqada haddaan ka hadlo inaan Somaliland waxaan kasii maqanan malaynta wasiirkaana ya November baan hadda joognaa dhamaadkeegii Novembertii 2013 oo ah xilliga uu dhacay shirka 40 guuladu Hargeysan ayaa joogay oo waxaan u socday sidii campaign aan ugu sameyn lahayn inay ka soo qayb galaan madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay ka qayb galaan shirweynaha marka waa 2 sano buuxda intaan Hargeysa ka maqnaa runtii waxaan dareemayaa inaan magaaladeedii u nimiday kolka laga yimaado dad nin siyaasi aan ahay xil saaran yahay wax kastoon sameynaya iyo wax kastoon leeyahay intaba laakiinse asxaabtaydii baa joogta dadkaygii baa jooga soo dhaweyntii awal baan la kulmayay iyo tuka kulul ah oo ka diiran ayaan la kulmay waxaanan aaminsanahay uun xilkii aan u siday aqoon-yahanka kolkaa horeba inaan sidii ugu sido kuwooga jooga Hargeysa iyo kuwa jooga Djibouti markaad eegto soo dhaweyntaadii Somaliland iyo Djibouti waa dad walaalooysa waa dad had iyo jeer wada dhashay waa dad suran soo dhaweyntaadii wasiirka arrimaha gudaha diinta u qaafta warfaafinta soo dhaweyn runtii xukuumadda aad u muhiim oo naga mahad celinayno mid waa muhiim wax weeye de Somaliland iyo Djibouti waa istilmaamay mid kalena Somaliland iyo Djibouti waa tahay warbaahintii anagana gacal baad la tahay waan ognahay inaad Somaliland tahay oo gacal Somaliland taasna waan kugu soo dhaweynaa waa jirta markaad eegto markaa xiriirkii Somaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti oo sida ay dad wada degan had iyo jeer wada jooga ay yihiin markaad eegto xiriirkii awqaaftii dhinacaad ka qaabilsan tahay markaad eegto dhaqankii oo tii warfaafinta aad ka qaabilsan tahay in maxaad isteeda xiriirka Somaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti ku soo kordhinaya socdaalkaagu horta runtii xiriir fiican ma ka dhaxeeya Djibouti iyo Somaliland waxa aad iyo aad wanaagsan anigana iga horeeyay oo soo jireen ah habas noqotay anigoo hadda xilka aan hayo kolkaan ka dhaqaaqo waxaan la shaqeeyaa waa laba wasaaradood waa wasaaradda arrimaha diinta iyo wasaaradda dhaqanka ama wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka okay wasaaradda arrimaha diinta waanu sheekaysanay horena wasiir Khaliil Djibouti buu noogu yimiday oo uu la kulmay xubnaha madaxda ka maarataane wasaaradayda waxaan aaminsanahay inaan ka wada shaqeyn karno meelo fara badan oo muhiim ah waxa weeyaan diin quraahati baa haysanaa oo wariba maarataane madhab fiqhi oo kaliya ayaan haysanaa oo reer Shaafici baana waxaan nahay reer Suufi oo Qaadiriya ah kolka in aan wixii diinta khuseeyo oo dhan ka wada shaqeyno waxa ta ku soo kordhay hay'ado maarataane horumarka ka qayb qaata oo wasaaradaha arrimaha diinta xukuma baa jira sida zakada iyo awqaafta oo sameeya maalgelin ku sameeya dalka lacag ururiya ay dadka qaniga ka qaadayaan oo kuwa baahan la siinayo
marka samafal iyo horumar iskugu jira marka meelahaasaan ka wada shaqayn doonaa wasaaradda warfaafinta iyo dhaqankana dabcan wixii awal baan ka wada shaqayn jirnay way jirta shaqaan ka wada shaqayn jirnay waxaa ka mid ah daryeelka iyo ilaalinta hay-adahaas naga dhexeeya ee aan wadaagno oo xuduudda ka tallaaba yani aan ku xidhnayn xaydaan siyaasadeed iyo dalan ku xidhnayn soomaali been baa ka mid ah akademiyadaasaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaalahan ka wada shaqayn karno munaasabadaha inaan isweydaarsano dee suugaanleyda iyo maaragtana fanaaniinta inaan isweydaarsano shirarka maaragtana khuseeya dhinacyada dhaqanka ah inaan maaragtana halkan ku qabanno halkaa ku qabanno oo aan iska kaashano waa majaal furan oo aad iyo aad u ballaaran runtii aniguna waxaan u ballan qaaday in aan diyaar u ahay in wixii aan kala qaban karo majaalaadka hadda aan sheegay ee anagu aan ku horeyno ama aan khibrad ku leenahay inaan si buuxda u gudbino iyo iyagana somaliland ahaana aan uga faa'iidaysano wasaaradahooda saacadda wasiir wasaaradda diinta awqaafta iyo dhaqanka markaad eegto arrin ballaaran weeye oo dhaqankii damadamada muslimka dhaqankii dhinac baa iska soo galay waa isku jira laakiin fanaaniinta marka la yidhaahdo waad og tahay dee dadkeena soomaalida fankii heesi iyo qaybihii kale iyo intii o dhan baa soo hoosgelayso xambaarsan diintiina masaajidadii iyo cibaadadii iyo halkaas aynu aragnay qof mogtahay fanaankii wax u arkaya wax yar kala durugsan arrimaha caynkaasi sidaas ku waafajisaa ama sawir caynkayaad ka bixinaysaa waad adaaba fadhiistay xilkaasi iyagoo wada jooga arrinkaasi annaga bilowgii dadku saaad u arkaysid bay ula yaabeen oo maxaa diintii dhaqanka la iskala doonay sawirka dadkeenu ay dhaqanka ka haystaan baa yaa ah inuu yahay uun qobka ciyaar okay dhaqanku wuu ballaaran yahay waa nolosheenna oo dhan sidaan wax u cuniyo sidaan wax u xidhanno iyo sidaan u cibaadaysano iyo sidaan isku tixgelinno iyo sidaan arooskeenna iyo nolosheenna u samayno nolosheenna oo dhan saan u dhaqannahay wey dee diintuna meelba kama maqno marka diinteenna ayaa dhaqankeenna ah waxaan marka anagu isku qancinay runtii dowladaha islaamka iyo carabta aan cilaaqaadka la leenahay ay nagu bogaadiyeen naguna hadda ixtiraamaan inaan uga horeynay fikrad aanay weli iyagu aanay helin oo ah in la israacisho wasaaradda arrimaha diinta iyo dhaqanka inta badan waxaa la israacshaa dhaqanka iyo isgaarsiinta iyo warfaafinta meel ay iska soo galaana ma jirto oo warfaafinta iyo isgaarsiintu waa wax isbebedelaya oo maalin walba maaragtaan dee waa shaqo waa wax techniga halka uu dhaqanku yahay wax sugan ay ummadi leedahay oo maguuraan ah oo in la xafido oo la ilaaliyo ay tahay marka waxay isku dabeecad dhow yihiin ama ay isgalayaan waa diinta weeyaan haddii dhaqankeena uu ku jiro wax diinteenna khilaafsan waa wax inagu aan gelinay innagana xil naga saaran yahay inaan idhaahno waxaan dhaqankeena kuma fiicna aan iska dayno laakiin dadka soomaaliyeed waa inay garowsadaan inuu dhaqankoogu yahay diintooda inay diintoodu tahay dhaqankooga okay arrinta ku saabsan fanaaniinta horta fanaaniinta anu cuqdad kama qabo fanaaniintu waa dad aan aad iyo aad u jecelnahay oon ixtiraamno haddii la tixgeliyo oo sidoo loo tixgeliyana waa dadka inoogu maskaxda badan inoogu curinta badan waxooga aan wada jecelnahay inaan dhegaysano on ku raaxaysano oo iyagaa ina cabira iyagaa ina matala dareenkeenna iyo maaragta tabashadeenna iyagaa sheega qoladaa inaan diinta ka saarno on idhaahno idinku diinta shaqo kuma lidan cadaalad maaha waxoogiina aan ku seexano oon kusoo toosno hebel baa yidhi hebel baa yidhi aan idhaahno culummada ayay u taallaa inay cilmi baaris ku sameeyaan heesta in la dhegaystaa ma xaaraanba in la heesaa ma xaaraanba mise waa xalaal miisiga maxaa ka saxa maxay diintu ka ogoshahay maxayse ka ogolayn waxaas waa majaal fiqhiya oo cilmi baaris u baahan khilaafna ka soo taagnaa laga soo bilaabo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaa maanta oo ma jiro nas si cad u kala qeexaya iyo nas wax intaasna waa xaaraan intaasna waa xalaal odhanaya laakiin waxaa laysku waafaqsan yahay uun afkaaga inuu ka soo baxo wixii ku xaaraanyahay oo inaad ku hadasho ay xaaraanta inaad ku heestana waa xaaraan hada wixii ereyga afkaaga inuu ka soo baxo ay xaaraan tahay oon qumanayn diin ahaan inaad ku gabaydana waa xaaraan inaad ku heestana waa xaaraan kolka waa ereyo
codka miisigu samaynayana waa wax kale oo de waqtigii dufkana isagaaba nebigu yidhi tuma oo aroosada ciyaara oo mada heestaan ansaartu waxay jeceshahay heesaha kolkaa culummada taa u daynaynaa inay maarataane baaraan laakiin waxaan ka yaraftiiminayaa inaanay wax colaadayahay fanka iyo diinta xataa ka dhaxay maaha dhaqankeeda diinta fanka iyo diintu xataa waa wax qurahaati weeyaan culummadana waxaa looga baahan yahay inay aad ugu fiirsadaan u dhaadhacaan xukun degdegana aanay ka bixinin saas ayaa maarataane saas wasiir ugu dambeyntii xiriirka Somaliland iyo Djibouti hore ku weydiiyay kulamada intii aad joogtay cidii aad la yeelatay iyo arrimaha aad jeceshay fariina halkan Somaliland iyo Djibouti inta ugu gudbisay waqti ku siiyo aad baad maasan tahay horta waqtigan joogo wali waa waqti kooban waa sanad iyo dhowr bilood waxaan isku dayay maarataane labada wasaaradood oo aan xilkooga hayo ama wasaaradda labada laamood ka kooban aan xilkooga hayo inaan xiriirkeyga sameeyo ama maaratan xoojiyo xiriirka aan la leenahay dowladaha aan saaxiibada nahay kuwa aan walaalaha nahay marka runtii safarro fara badan ayaan ku tegay dalalka carabta oo aan wadaagno dhaqan iyo diin intaba aan wadaagno waxaan booqanay sacuudiga 2 goor ayaan maarataane booqanay waxaan kala sheekaysanay dhinaca diinta iyo dhinaca dhaqankaba inaan wax isweydaarsano isna kaashano waxa kale oo aan booqashooyin ku marnay iyagana Qatar waxaan tagnay Kuwait waxaan booqanay Oman waxaan booqanay Masar dalalka carabta intooda badan yani hadda intaa waa magacaantooda man ka tilmaamay imaaraadka sidoo kale xiriir de joogta ah ayaan leenahay oo dhan walba ah waxaa kamid ah dalalka iyaguna aan booqanay oo aan ka wada sheekaysanay iskaashi iyo waxqabsi Turkiga dalalka carabta marka laga yimaado waxaan rajaynaynaa itaalkayga intaan joogno inaan dadaal wixii aan bixin karnay ugu badan inaan bixino xoojinina maarataane wada shaqaynta iyo xiriirka naga dhaxeeya dalalka jaarka iyo kuwa aan saaxiibka nahayba laakiin waxaan ku boorinayaa kuna dhiirigelinayaa dhalinyarta inay ka xoroobaan dareenka ah wax ma qaban kartaan inay ka xoroobaan sidoo kale dareenka mararka qaarkood ama dadka qaarkood ka soo bixi kara asal nacaybka kolka asal nacaybka leh waxa weeyaan odayada hal naga hoos qaaday iyo meesha hal noo baneeyay iyo hebel laga inay waxa noloshu ay tahay wax salaan isa suran oo la isku dhiibayo inay tahay mal walba wad joogtay meel walba wad joogtana xil kugu aadan oo wax ka tari karto inuu jiro oo wax ka qaban karto haday kaas suuragal ahayn inaad wax ka qabato ka kala wax ka qabanaysa jiro alternative ah laakiin hadan ka la ii dhiibayna ma aan ka qabanaynin waxba qaban maayo anigu waan iska joogsanaya oo waxaan negative baan noqonayaa inaan taa iska ilaalino oo aan aamino ilaa intaan qabriga galayno xilun bay nagu aadan meelun baa noo banaan oo wax ka qaban karnaa in suugaanta iyo dhaqanka sidii uu u socon jiray furnayd ee xorta ahayd ee aan xuduud lahayn inuu u socdo oo u tixgelino oo u ilaalino inuu yahay waxaan wada leenahay waa hanti la wada leeyahay inay tahay oo aan siyaasad cilaaqo la lahayn culimada diintana maanta waxaan oran lahaa runtii marxalad waxa la marayaa aad iyo aad u adag ma aha inaga oo dunida islaamka oo dhan waxa la marayaa marxalad aad iyo aad u adag oo diinta islaamka sawir falxun laga bixinayo ama si ula kac oo ka sahan noqoto ama si garasho iyo jaahilnimo ah noqoto qaladka iyo gafka lagu sameeyo diinta islaamka waligeed ma soo dhicin yani kamaanta lagu sameeyo kulamada wali ma soo dhicin inaguna waxaan nahay bulsho muslima sida awadeed culimada muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ay dhageysanaysa waxaan oran lahaa bal sixil kasnimo ah oo ka fog kooxaysi oo ka fog danaysi oo ka fog gobolaysi inay uga fikiraan mustaqbalka diinta islaamka iyo geeska Afrika ودب لو نقطة تاريخ ذي لأن تهتم منا المسلمين إنه وقت النبي محمد بن مسلم إلا ما أنت المسلم بنا حين وحنا وحلا مدي هنا إنما سو مرين قل كها إن في النضا عصرك إن لقى فريستو وسيدكن وقرات كشرو ودقن كيني كسلايسن إن دين الإسلام كله فكره انتصرنا لها
أدي أدو ما ستوسير وهذاك داود يا الوقت قلنا قالي يعني ذيك هذه جم هذا البرنامج كان سيدا تقول السعود ثاني برنامج كان ملك استوى نقد داون السنة دي كيمن يستوديا مقالة هرجيسة أنا كلها أنا مرتدى نوجوها وزير كوسارات الدين توقفت يدقن كجمهورية جيبوتي آذن حسن آذن لما تيم بأخيارتك قيب قاطع لنا عفر السماء يو برنامج دي سو قد بينا حسن ما روما ولنا عم يصير كشوجي عبد لنا كمرات شوجي محمد عيسى آذن وبرنامج كان سوساري دي سيا قيب بدنا نقرأ قيب قاطع إلى هذا النقلة شوجا لما تيم ملك استوى شوكتام واحد لنا أدب ما سنتين أدي أدب ويصير وقتها غالي يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان انت سوسو